garowe xilligiisii ayaa la joogaa guga oo maasheeyay ayaa nadiif ka dhigay dhammaan dusha sare ee daaraha magaalada biyaha roobka guguna waa ka fataheen waddo walba oo ku taalla caasimadan dhismaysa marka aan ku leeyahay dhismaysa saw ma aha in aad la dhugato haa waxaase ka horreeya safarkan kooban waddadan jidka soddonka ayay uga baydhaa dhanka koonfureed waddadan ayaa ku geynaysa halka ay ka socoto dhismaha xaafad casri ah oo magaalada garowe laga dhisayo jidkan laftiisa waxa uu ka mid yahay inta mashruucaasi hirgeliyey magaalada xasiloon ee caasimadda puntland garowe ayaa laga aadayaa dhanka koonfureed 4 kilomitir markaad socotid ayaa gaaraysa halka uu ka socdo dhismaha xaafadda cusub ee amal village kolka aad fagaagan soo gaarto ayaa fahmaysaa xajmiga hawsha halka ka socota jidkan la nidaamiyey halkan ayuu u socday waa ilinka ilaalada leh ee laga galo goobta uu ka socdo dhismaha xaafadda casriga ah ee amal village inta aynaan gudagelin oo aanan ablaablayn aan dib kuu celiyo si aad faham buuxa uga hesho halka loo socdo dhugo naqshadan waa sida ay xaafadani u ekaan doonto dhammaystir kadib xaafadda si guud ahaaneed waxay ka kooban tahay 120 hektar waana boundary-ga xaafaduna waa ku dhawaad 6 kilomitir xilligan waxa socda dhismaha wajiga koowaad ee xaafaddan casriga ah iyada oo la rabo in 2 sano gudaheed lagu dhiso in ka badan 200 oo guri oo deegaan ah iyo goobaha adeegyada bulshada waxaa tallaabadaasi xigi doona 3 waji oo kale ilaa laga dhammaystirayo dhismaha xaafaddan oo la rabo in la hirgeliyo ilaa 1,000 guri iyo ka badan guryaha deegaanka ah ee halkan laga hirgelinayo waxa ay isugu jiraan ilaa 8 jaad waxaa loo qaybiyey 8 nooc oo guryo ah 5 ka mid ah guryaha kan waxa ay yihiin guryaha loo yaqaano dhaxkadhis ama bungalow 3 ka mid ah guryahan waa guryaha dabaqyada ah ama G+1 kuwaasoo ayagana aad iyo aad loo naqshadeeyey intaasi waxaa dheer dhismaha danta guud oo iyaguna muhiim u ah xaafaddan kuwaas oo qorshuhu yahay in bilowgaba la iibiyo masaajido casri ah madaaris school international ah supermarket cafeteria restaurant hoolal swimming pool goobo ay carruurtu ku ciyaaraan garoomo loogu talagalay kubadda in lagu ciyaaro goobo nasiino biyo macaan iyo security system oo 24 saac si haddaba hawshani habsami ugu hirgasho bilowgiiba waxaa deegaankan lagu diyaariyey shay walba oo shaqadu u baahan tahay dhammaan noocyada qalabka kala duwan kiisa yar iyo kiisa weyn gaadiidka iyo sidoo kale warshadihii diyaarinayay agabka dhismaha ee ay shirkadu ku hirgelin lahayd xaafadda amal real estate taasina waxa ay keentay in durba hawlaha muhiimka ah la gudagalo sida in tabtii naqshadu u muujinaysay loo dhiso xafiisyadan hawlaha laga agaasimo halka loo socdo waa dhismaha magaalo dhammaystiran oo leh wixii laga rabay magaalo casri ah intan hirgashayna waxa ay tusaale togan u tahay siday u ekaan doonto xaafaddan casriga ah ee amal village oo ka dhismaysa koonfurta magaalada garowe ee caasimadda puntland dhismaha xaafaddan waxaa amal real estate ay ku maalgelisay malaayiin dollar iyadoo loo qaybiyey 4 waji iminkana uu socdo dhismaha wajiga koowaad waxaa loo gudbay dhismaha guryaha deegaanka ah oo qaarkood dhammaystir ku dhow yihiin iyadoo xaafaddan aqal walba oo laga dhisayo aad looga taxadarayo tayadiisa waxay ka bilaabataa shaqadu marka horeba in la ogaado soilka ama foundationka ay ku fadhiyaan guryaha kadibna markaasi loo process gareeyo foundationka ugu macquulsan oo gurigaasi stable ka dhigaya oo hadhow guriga inuu dildilaac iyo crack uu ka yimaado ka ilaaliya halkan waa qaybta tay ilaalinta ama shaybaarka ee shirkadda shay walba oo galaya dhismayaasha ka socda xaafaddan amal real estate waxaa loogu talagalay in halkan la marsiiyo ka hor inta aan guryaha lagu dhisin ama jidadka lagu dhisin shay walba waxaa la mariyaa tayadiisa in la ogaado si lagu ilaaliyo dhismaha tayada shubka ciidda wadada wax walba mashiinada dhan wada dhameystiran walxihii tayadooda la hubiyey ayaa loo gudbinayaa dhismaha shaqaduna tallaabo kasta oo la qaadayo waxa ay u baahan tahay taxaddar iyo mas'uuliyad dheeraad ah intaasi waxa dheer in la diiwaan gelinayo wax kasta oo dhismahani galaya waxaan rajaynaynaa mulkiilayaasha guryaha markii gurigooda lagu wareejinayo xogta guriga lagu dhisay materialka ee guriga la geliyay intaba in maaragtay si waafiya loola wadaago si u ogaadaan quality-ga gurigooda iyo cimriga gurigooda uu yeelanayo waxaan ognahay in aradka ugu weyn ee ka jira magaalooyinka dalkeenna uu yahay dhir la'aan xaafaddan se cagaarintu waxa ay ahayd mid markii horeba ugu jirtay muhiimadda koowaad oo bilowgiiba loo guntaday dhugo sida ilqabadka leh ee durba cagaarku isu qaatay
ogsanow dhiraynta xaafadani waa mid ku socota shax injineer dejiyeen oo loo fulinayo sidii loo qorsheeyay iyadoo oo la raacinayo jardiinada jidadka iyo goobaha loogu talagalay nasashada iyo luga baxsiga ilaa hadda inta noo dhisan 10% 120 hektarkaasi ka mid ah way cagaaran tahay waxaana ku beeran dhir waxayna rajadu tahay ama qorshuhu yahay in la gaaro ilaa 30%. deegaanka waxaa lagu dadaalayaa inaan la dhalan rugin ee lala falgalo sida togan oo labadiisa gowdhir la raaxshay iyadoo oo haddana xaafadan si heer sare ah looga maareeyay biyaha roobka sida kale xaafadu waxyaalaha ay kaga duwan tahay meelaha kale waxaa ka mid ah infrastructure-ka xaafada oo loogu talagalay xaafadu inay lahaato drainage system ee la jaanqaadi kara dunida kale kaasoo ilaalinaya water storm-ka iyo rain water-ka biyaha xaafada in si habsami leh ay u aruuraan si fududna xaafada uga baxaan aysan xaafadaha aysan biyuhu ku laaban sida oo kale waxaa dhab looga taxadarayaa adeegyada kale ee xaafadani oo si casri ah loo hirgelinayo xaafada infrastructure-keedu waxyaalaha aadka looga taxadarayo waxaa ka mid ah in facilities-ka iyo utilities-ka kule ay noqdaan underground waxaa ka mid ah waxyaalaha underground-ka ah cabling-kii network-ga korontada iyo wixii biyaha la xiriira oo dhanba inay underground noqdaan oo aysan xaafadu yeelan overheads iyo maaragtay baalasha meelaha ka taagan oo hadhow riski keeni kara waxaa la rabaa marka hawlahaasi u hirgalaan sidii loogu talagalay in halkan ay ka dhisanto xaafad casri ah oo leh goobo ganacsi oo dhammaystiran guryo deegaan oo dhowr jaad ah xarumo caafimaad oo heer sare ah iskoollo tayo sare leh masaajido xarun booliis laami casri ah oo dhammaystiran biyo nadiif oo macaan iyo koronto joogto ah waxaa intaas dheer goobaha dalxiiska iyo nasashada oo inta la cagaarshay dhab loo naashnaashay taasi waxa ay fariin cad u tahay kabashada dalkeenna oo isaguna inoo ka baahan in la maalgashado sida oo kale amal real estate oo tacabkan gelisay xaafadan casriga ah waxa ay u gacan haadinaysaa Soomaalida u hilowday dalkeeda oo u jeelan in ay soo gurya noqoto oo maxay ugu gacan haadin weyday hadiiba dalkii laga hirgeliyay deegaan u diyaarsan sida midkii ay u dooleen ee horay duruufta u geysay